dadka qaxootiga ee ku dhaqan xerada Kaambicoos ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen nidaamka ay ku socoto diiwaangelinta qaxootiga doonaya in si iskood ah ay ugu laabtaan dalkooda hooyo. warbixintan waxa mar kale inoo soo diray wariyaheena Maxamuud Aways Maxamuud Daacad oo Soomaali Cable uga soo warama xeryaha qaxootiga Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. kaali Sember intaan ruuga waxna liima qabtooha waxaan rabaa saddeq isaaka hirabti in liiqaad dadka qaxootiga ku xerada Kaambicoos ayaa ka cawanayaan helitaan la'aanka isdiiwaangelinta qaxootiga isla markaana ay sheegeen inay doonayaan inay dib ugu laabtaan dalkooda ee Soomaaliya. Hadaba mar aan saaka subaxnimo aan booqanay xerada qaxootiga Kaambicoos ayaan waxaan la kulanay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ku xerada Kaambicoos oo isla markaana safaf dheer ugu jira isdiiwaangelinta dib u laabashada qaxootiga iyadoo isla markaana ay sheegeen inay haatan doonayaan in ay dib ugu laabtaan dalkooda ee Soomaaliya maadaama ay cabasho ka muujinayaan qaabkii loo celin lahaa. waa kuwan qaar ka mid ah ayaa waxa goobtaasi ay ugu warbixiyeen warbaahinta. horta dadka meesha jooga shacabka meesha jooga aad bay u dhibaataysan yihiin. dadka maalin walba waxa la dhahaa 20 qof baa wax u qabanayna 20 qof umada kale waxa la gudahan ku soo xaroodo waalidin qabanay halkan soo fadhiista 20kii la hareeyana dad ba telefoon loogu wacaya oo maarta irida laga gelinay 20kii feelkii subaxdii ay galaan habeen bay ku gaarayeen galabtii markii la gaaraa lihii shaqada way dhamaatay waqtigan uu dhamaaday si galbada oo bari imaada wax u qabanayo ilaahay abuuri ma jirto dadkan wax qaadayo meesha ma ku arkin Soomaali baa imaanayso dhalinyar yar baa imaanayso wixii oo maarta maskaxdaada galaynin bay meesha ku sheegayeen waan la kala yaacaya dadkina feel bay ku jiraan ilaa hadda way taagan yihiin rafaad iyo harjad iyo orax iyo dhaxan intaasaan joogo Semberi anoo waayay hojika jiga kaali liilahay banaankaana liigu xiray gaajidada ay dhameeshay rafaad iyo dhaxandada ay dhameeshay kaali Sember intaan ruuga waxna liima qabtooha waxaan rabaa saddeq isaaka hirabti in liiqaad ساكن رابطين الملقاب حبتكو اللي قلتكم حبتكو Kaambicoos تولد اللي يراها ساكي حبتكو أنا اللي قلتكم اللي بلاي مليه بريه بلوغ مليه ساكي حبتكو أنا اللي قلتكم نعم مالك مرهب وعن هايشت مالك أنتو ما هايشت حتى علىنا أبويا مال بيت أو حكا قادن جري كودتك أسلف الديست أنت نكون نولح دحن الرح قاجي الماء ودبروها واقواس وحان ربا ساكن اللي ربا بسم الله الرحمن الرحيم وعنا حرده Kaambicoos waxaan diiwaan gelin aan u taagnahay 2 bilood anigii cunugaygu isku rafaadnay maalin kastana meeshaan taaganahay wax diiwaan gelinna ma helna wax la raraayay ma helno maxay ahayd maalin kasta 2 qof iyo 3 qof inta la yeeriyaa maxana la iskaga tagaa wax noo shaqeynaayo ma jirto waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay naga qaadaan oo noo fududeeyaan oo shaqaale fiican ay noo keenaan oo rafaad dawladda Kenya inay guurana tiri diiwaangelisna aan haysanin oo rafaad iyo dib iyo saxariir iyo silac iyo dad la leenahay aan xadkan ku qabno askartana lagu soo dalbani 10 maalinkiiba 10 ruux kali la diiwaangelinayo kiiga horeeya dhameeyay annaga baahida annada waa inaan guurno oo dalka annaga aadno dalka Kenya madaxweynaha ugu sareeyay dawladdiisa waxay cadeeyeen inaan wadanka qaxootiga uu ka noqonayo nolol sheegay waftiga imaadana waa ku raacay sidaas aawadeed annaga ma deganin geedi baanahay waxaan u jeednaa Soomaaliya si kastaba haatee iyadoo bilooyin qura laga joogo markii dawladda Kenya oo ay shaacisay inay xiro doonto xeryaha Dadaab ee dalkan Kenya iyadoo isla markaana xeryaha qaxootiga Dadaab dalkan Kenya kuna sugan yihiin nus milyan qaxooti magangalyo doon kuwaas oo inta badan ay dib ugu laabteen dalkooda ee Soomaaliya. Maxamuud Aways Maxamuud Daacad TV-ga caalamiga Soomaali Cable xeryaha qaxootiga Dadaab Kenya gobolka Waqooyi Bari.